الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ما أحلاك يا رمضان، رمضان محاكا في عن، رمضان محاكا معان، رمضان محاكا وناكسن. ولا ليال وبشي رمضان، وبشي خير كبدنيد، وبشي ليلة القدر، وبشي قرآنك، وبشي دعاء، وبشي صدقة، وبشي وناقة. بشي رمضان وبشي لاعتكافي، وبشي البابدة جنة لفري، وبشي البابدة النار لحري، وبشي شياطين تواوين لحري. ولا ليال بشني وبشو أدومديس إلهي أدن بدافي، وبشي قرآنك كريمك ألا سودجي، وبشي ددكي ووناكسنا سلف هذه الأمة أي قنتك أحرحرنيين أي أولا لابنيين. بشني ولا ليال وبلها إلهي بشا أو خير كبضن، بشو إلهي أو كدرت بلها وبشا رمضان. بشا رمضان وبشا وناكسن، وبشا إلهي أدومدي سؤودن بدافو. ولا ليال إمسان دنبي أنقلني، إمسان خلدني، هدي أندونينو إنو إلهي إنو دنبي دافو، إلهي إنو نحريستو. واتن بشي دنبي دافكو. إمسان دنبي كدعني، إمسان خلد كدعني، إمسان حاران أغني، إمسان حاران كهذلني، إمسان حاران كفكرني، إمسان إسراف للنمت، إمسان حد قدبني، إمسان قوقني. ولا ليال أحبتي في الله واتن بشي توبدو، واتن بشي دنوب تلمسحي، واتن بشي إلهي لو نقني، واتن بشي ويني، واتن بشي إلهي للهشيني سبحانه وتعالى. وبشاسي إلهي البابد جنة أفريو، البابد النار تأحريو، وبشا الشياطين تلحريو. محاد سوغيسا هدبا، محاد سوغيسا miyaad doonayn ilaahay inuu kuu dembi dhaafo dunuubtaadii? imisaad khalad samaysay, imisaad dembi aad gashay, miyaad doonayn ilaahay dunuubtaadii inuu dhaafo? soonku waa dembi dhaaf. nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih. nebigu waxa uu yidhi, qofkii bisha ramadaan sooma isaga oo iimaan rumaysan, isaga oo dembi dhaaf doonaya, oo ajar doonaya ilaahay inuu ku siiyo, ilaahay gafara lahu maa taqadama min denbih. dembigiisii hore oo dhan buu ilaahay tiraa. allahu akbar. ilaahay baa dunuubtaadii masaxaya. bal habeenkaasi u fiirso, taasi waa qofkii bisha ramadaan sooma. qofka salaatuleylka u sarakacana maxaad u maleen? man qaama, nebigu waxa uu yidhi, ninka istaaga ramadaan, bisha ramadaan, ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa dunuubtiisii hore oo dhan. allahu akbar. ninkii ramadaan taraawiixda ku dadaala, salaatuleylka ku dadaala, ilaahay dunuubtiisa ayuu dhaafaa. maxaad u malayn qofkii habeenkaa laylatulqadrigana istaaga? nebigu waxa uu yidhi, man qaama laylata alqadri إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ninkii habeenkaasi ilaahay u waafajiyo, habeenkaa laylatulqadri qofku ilaahay u waafajiyo, ilaahay dunuubtiisii oo dhan buu masaxaa. u fiirso, waa 3 goor. waa qofkii ramadaan sooma, ilaahay waa u dembi dhaafaa. u fiirso, habeenada ramadaan qofkii salaatuleylkii iyo u sarakacay cibaadaysta, ilaahay dunuubtiisii uu dhaafaa. u fiirso, qofkii habeenka laylatulqadriga ilaahay uu waafajiyo, ilaahay dunuubtiisii uu dhaafaa. maa axlaaka yaa ramadaan,
ramadaanoo maxaa kaa fiican, ramadaanoo maxaa kaa wanaagsan. walaalayaal, haddii aad doonaysaan ilaahay inuu ducada inaga aqbalo, habeenadii khayrka badnaa ee ducada la aqbalayay ayaan galnay. ilaahay addoommadiisa naarta ayuu ka xoreeyaa. nebigu waxa uu yihi inna lilaahi cutaqaa fii kulli yowmin walayla. ilaahay habeen walba iyo maalin walba wuxuu iska leeyahay cutaqaa, dad uu naarta uu ka xoreeyo. nebigu waxa uu yihi walikulli cabdin minhum dacwatun mustajaaba. wuxuu leeyahay addoonku dacwo ilaahay u aqbalo buu leeyahay, dacwo la ajiibo ayuu leeyahay. idan waa bishii ducada ilaahay u aqbalayay. ma axlaka ya ramadaan. nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam lisaa'imi cinda fitrihi dacwatu laa turad. xadiis kale lisaa'imi cinda fitrihi dacwatun maa turad. nebigu waxa uu yidhi qofka sooman markuu afurayo dacwo uu leeyahay ilaahay uu siiyo oo ilaahay uu ka aqbalo. dacwadaasi wax alla wixii khayra eed ilaahay aada weydiisatid ilaahay uu ku siinayaa. bal nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiid kale, halaaatun laa turaddu dacwatuhum. saddex ducadooda waa la aqbalaa, lama soo celiyay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ahaa saddexdaasi assaa'imu xiina yuftir, qofka sooman markuu afurayo buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markuu afurayo ducadiisa ilaahay wuu aqbalaa. maanta oo dhan buu ilaahay daraaddii usoo soomanaa, ilaahay ducadiisa wuu aqbalaa. walaa yubaali, ilaahay uma aaba yeelo. ilaahay ducadaada inuu aqbalo ma doonaysa. waata bishii imisaad u baahan tahay khayr badan, imisaad u baahan tahay, imisaad u baahan tahay xanti, imisaad caafimaad u baahan tahay, imisaad awlaad u baahan tahay, arsaaq xalaala, shaqo wanaagsan, ilaahay inuu ku ilaaliyo xaaraanta, ilaahay fasaadka iyo cudurada dhacaya inuu kaa ilaaliyo. ilaahay imisaad u baahan tahay, imisa. waatan ducadii, waqtigii ducada la aqbalayay. waxaa lagaa rabaa inaad dadaashid. maa axlaka ya ramadaan. ramadaanoo maxaa kaa fiican, ramadaanoo maxaa kaa wanaagsan. maalinkii oo dhan axibatii fillaah waxaa lagu dhammaysanayaa waa soon, waxaa lagu dhammaysanayaa waa sadaqo, waxaa la wadaa waa jihaad maca nafs, waa la shaqaysanayaa. habeenkiina khayr baa lagu jiraa oo waa qiyaamu leyl baa lagu jiraa, qur-aankii baa la akhriyayaa, waa ducadii, waa oohintii. maa axlaaka yaa ramadaan. ramadaanoo maxaa kaa fiican, maxaa kaa qurux badan. imisaa masaakiin la quudinayaa, imisaa dadka fuqaraada iyo dadka baahdan iyo armalida iyo agoonta la baadhaya oo la raadinayaa si loogu kaalmeeyo. imisaa agoon ayaa madaxa loo masaxayaa, imisaan qaraabo xidhiidhinaynaa. maa axlaaka yaa ramadaan. ramadaanoo maxaa kaa qurux badan. maa ajmalak, maxaa kaa qurux badan. habeenkaaga iyo maalinkaagu cibaado iyo khayr iyo wanaag ayuu ku buuxaa. bal saacadahaaga, bal ilbiriqsigaagu khayr ayuu ku buuxaa. axibatii fillaah, bishan ramadaan waa bishaa ilaahay fadligiisa uu sidaa u ballaadhan yahay, waa bishaa naxariista badan, waa bishaa wanaaga badan, waa bishaa khayrka badan. nebigu waxa uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ragima anfu rajulin dakhala calayhi ramadaan uma insalakha qabla an yugfara lahu. nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay sanka dhulka ha ugu dhufto, afkiisu ha boodhoobo. qofkaasi khayr oo dhan ayaa la seejiyey. qofka bishii ramadaan ay u soo gashay oo loo dembi dhaafay. ilaahay addoommadiisu u dembi dhaafayaa, addoommadiisu wuxuu xoreynayaa. dad baa salaatuleylkii loogu dembi dhaafayaa, dad baa sadaqadii loogu dembi dhaafayaa, dad baa qiyaamuleylkii, dad baa khayr badan ilaahay ugu dembi dhaafayaa. qofka aan waxaaba samayn maxaad u marayn? qofka laga xarimay wanaagaasi, qofka habeenkaa ku jiray shar maxaad u malayn? qofka ummadda xamanayay waqtigaasi maxaad u malayn? nebigu wuxuu hi afkiisu ha codho, ha siigoobo, afka dhulka ha ku dhufto, ha hoogo, ha khasaaro.
qofka habeenada khayrka badan ay u soo galeen oo bishii kadibna ka baxday isagoo oo loo dambi dhaafin. ilaahay inaga ma dhigo kuwaasi. ilaahay ha inaga dhigo kuwa naartiisa laga xoroobay, kuwa ducada laga aqbalay, kuwa bishaa fahmay micnaheega, kuwa iimaanka u biiriyey, kuwa khayrka ku dadaalay, kuwa ka faa'iidaystay, kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha uu leeyahay albaabkaasi baabu rayaan ee jannada ka gala buu ilaahay leeyahay maalinkaas. ilaahay kuwaasi ha inaga dhigo. وبالله التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد